kulan ballaaran oo lagu taageerayay ansixinta heshiiska saldhigga military ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadka Carabta oo maalintii shalay cod aqlabiyad ah ku meel mariyay labada gole shacab ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ayaa lagu qabtay fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Cerigabo waxaana kulankaasi ka hadlay Salaadiin halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo labada gole qaran golaha baarlamaanka golaha guurtida waanka geesinimada leh ee ay gaadheen waxaan daanahay xuqaasha reer Cerigabo ama degmada gobolka oo dhanba waxaanu leenahay hambaliyo baan taageersanahay labada gole iyo guurtida iyo madaxweynuhu arrinta ay ansixiyeen haddaan u arkeen annaguna waa ku taageersanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Soomaaliland iyo labadiisa gole ee baarlamaanka iyo guurtida waxaanu ku hambaliyeenaynaa arrintii geesinimada lahayd ee airportka berbera iyo dekadii hore ay qabteen aad iyo aad baan ugu hambaliyeenaynaa diyaar nahay dadweynaha gobolka Sanaag waayo wax horumarkuna wuxuu ka yimaadaa waxyaalaha la isku darsado simuk iyo miisaan la soo dhaweynaa xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo garwadeenka ka yahay go'aankii geesinimada lahaa uu gaaray ayaanu aad iyo aad u soo dhaweynaa simuk iyo miisaan leh madax meel ka sarreyso la taabtaa ma jiro dawladdu dadkeeda iyo dalkeeda iyada ka mas'uula nina korkiisa biyo kala ma haro waxay u horseedaa waa horumar iyo maxay ahayto intifaac wanaagsan iyo aayay dalka horta dadweynaha halkaas waa salaamayna oo mabda'a ku wada taagan waa salaamayna waxaanu salaamayna madaxweynaha iyaga Axmed Maxamuud Silaayo baarlamaanka waxaanu leenahay guul ayaa ka gaadheen madaxweynahana waxaanu leenahay waad ku mahadsan tahay dalka iyo dadkuba adigay ku rabaan dadkuna adiga ayay ku doorteen go'aanka aad soo saartayna waa la raacsan yahay gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Axmed Cabdi Jaamac Falax oo gabagabadii munaasabad chief caaqilada xuqaasha madax dhaqameedka dhamaantoodba haweenka dhalinyarada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha bulshada oo dhan ee halka isugu yimi ee boqolaalka gaaraya waxaan leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam dabadeed ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala mahad iska leh waxa maanta halkan dadweynaha reer Sanaag uu isugu yimi caasimadda Cerigabo hambaliyada aynu hambalyeynayno marka hore madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo inoo keenay mashruucan horumarka iyo ictiraafka xambaarsan waxaan kaloo runtii hambalyeynayaa labada gole qaran guurtida iyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sida geesinimada leh shalayta ugu codeeyay 144